بن فهر بن مدرك بن إلياس درس الرسول صلى الله عليه وسلم قال بمكة مالين سنين في شرب الأول والسنة كي رزقكم فيجن أبريشن بخصوصات نكهر مقع محمدنا وحربه أبويس عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم عبيه سحر انت أول كويس كجير أميرة بنت وهب وحجيرية الأحسن كذب دلشة رسولك صلى الله عليه وسلم نوجنت نبي صلى الله عليه وسلم مركو دشتي اسبوع كذب waxaa nuujisay Thuwayba kadibna waxaa nuujisay Halima bint Abd Du'ayb Halima Sa'diya awiisa Abd al-Muttalib ayaana u doortay Halima oo degnayd baadiyaha Makka waxayna nasiib u yeelatay Halima nuujinta nabiga sallallahu alayhi wasallam oo ayada marka ku jirtay xaalad dhaqaale adag fadligiisana waxay ku heshay barakooyin badan iyo horumar xagga nolosha barbaarintii rasuulka sallallahu alayhi wasallam darashadiisii kadib waxaa la wareegay barbaarintiisa Halimatu Sa'diya sanadkiisii afraadna waxaa dhacday dhambaladii laabtiisa kadibna Halima waxay ku soo celisay hooyadiisa Aamina nabiga sallallahu alayhi wasallam markii uu jirsaday 6 sano waxaa geeriyootay hooyadiisa Aamina waxaan la wareegay barbaarintiisa awoowgiisa Abdul Muttalib ilaa uu ka gaaray 8 sano iyo bilooyin kadibna waxaa la wareegay barbaarintiisa adeerkiisa Abi Talib akhlaaqdii rasuulka sallallahu alayhi wasallam nabiga sallallahu alayhi wasallam markii uu yaraa wuxuu ahaa ruux kulansaday dhammaan akhlaaqaha wanaagsan sida run sheegida balan ilaalinta amaanada dhowrista xuquuqda dariska u gargaaridda dadka tabarta daran iyo wixii la mid ah nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka fogaan jiray waxyaabaha xunxunka oo dhan sida khamr cabista caabitaanka asnaamta iyo wixii la mid ah shaqada rasuulka sallallahu alayhi wasallam nabiga sallallahu alayhi wasallam yaraantiisa wuxuu raaci jiray ari inta uu la joogay reer Bani Saacid markii uu gaaray 25 sano wuxuu ganacsi u aaday carka Shaam isagoo ku shaqaysanayaan Khadiija bint Khuwaylid nabiga sallallahu alayhi wasallam gurkiisi markii uu ku salaatay rasuulka sallallahu alayhi wasallam Khadiija waxaarta rasuulka sallallahu alayhi wasallam amaanadiisa iyo barakada ganacsigiisa waxaan u soo jeedis inuu guursaday Khadiija waa xaaskiisa ugu horeysay waxaan u dhashay carruurtiisa oo dhan oo laga reebay Ibrahim oo Khadiija waxa uu dhashay rasuulka sallallahu alayhi wasallam Al-Qasim Zaynab Ruqayya Kulthum Fatima Abdullah Khadiija markii geeriyootay kadib wuxuu guursaday rasuulka sallallahu alayhi wasallam dhowr xaas nabinimadii iyo rasuulnimadiisii nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu ku dhawaaday 40 sano wuxuu kali ku noqon jiray kuna cibaadaysan jiray qaari Hira markuu gaarayna 40 sano wuxuu Ilaahay kali ku noqon jiray kuna cibaadaysan jiray markuu wuxuu ku karaameeyay nabinimada malakul